shan askari oo ka tirsan ciidamada booliiska GSU-da loo yaqaana ee gaafareega ku sameeyay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa qaraxani ku dhintay halka 3 kale oo gaarigaasi saarnaana iminka dhaawac culus uu ka soo gaaray qaraxaasi koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab oo in dhawaaleedba ciidamadaasi ay ku raacdaysanayeen inta u dhaxaysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ay halkaasi ku aaseen goobjoogayaal kala duwan oo idaacadda VOA-da ay la xiriirtay waxay u xaqiijinayaan in meedka 5 askari la keenay gudaha magaalada kadibna loo sheegay in duulimaad loo sameyn doono halka 3 kalena caafimaad loogu soo qaadi doono magaalada Nairobi qaraxan oo saaka aroortii 9 iyo barka lala beegsaday kooxdaasi ciidamada ka tirsan GSU-da ayaa waxa uu noqonayaa qaraxii ugu dambeeyay noociisa oo halkaasi lala beegsado ciidamada shabaab ee inta badan ka dagaalamay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa iminka kordhiyay weerarada ay ka wadaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa bishii la soo dhaafay ku dhawaad 8 askari oo ka tirsan tiriga dalkani Kenya meel u jirta magaalada Liboy 18 kiiloomitir oo kaliya ay ku dileen gaarigoodina halkaasi ay ku gubeen qulqulatooyinkana waxay noqonayaan kuwo horaan kooxda al-shabaab ay nidir ku martay in ay kordhin doonto xilliga bishan Ramadaanka lagu jiro ciidamada ammaanka ee dawladda dalkani Kenya inta badan waxay fashiliyaan weerar kala duwan oo kooxdaasi ay doonayso in gudaha dalkani Kenya ay ku soo qaadaan Maxamed Farax Shire VOA Garissa.